maanta waxaan soo qaadan doonaa qiso aad iyo aad u saameyn badan. Waa maxay jazaha ama abaalmarinta aad heli doontid haddii aad samaysid wanaag? Ka hor intaanan idiin bilaabin qisada, waxaan idinka codsanayaa inaad channelka haddii aad ku cusub tahay subscribe noo saarto, nagu dhiirigeli like-ta, sidoo kale noo share gareey haddii uu ku qanciyo barnaamijkan ama qisadan. Maalin maalmaha ka mid ah, Xasaan waxa uu ahaa beeraley. Waxa uu falanayay beertiisa. Si lama filaan ah ayaa waxay ugu dhacday faaskiisa ama misaartiisa ayaa waxay ugu dhacday ceel. Markii uu ku jiray hawl maalmeedkiisa ayaa waxay ugu dhacday inta uu kufay ayay ceel ugu dhacday. Waa uu waayay faaskii. Waa uu fikiray. Wuxuu ogaaday in ay faaska ugu dhacday ceelka, mana la soo bixi karo faaska. Waxaa yimid wiil ay daris yihiin oo la yiraahdo Saliim. Waa uu salaamay, adeer sidee tahay? Waxa uu sheegay arrinkii ku dhacay oo qabsaday. Marka ayuu u sheegay ayaa wuxuu dhahay wiilkii aniga ayaan ku caawin doono. Wiilkii si lama filaan ah ayuu wuxuu ku galay ceelka si uu ugu soo raadiyay faaskiisii. Markii uu galay ceelka, wax yar waa uu soo daahay. Xasaanna waa uu ka walwalay wiilkii ay dariska ahaayeen. Zaid ayuu u walwalay. Markii uu soo dhawaaday ceelka waa uu soo baxay Saliim markii uu soo baxay oo yimid banaanka ayaa waxa uu weydiiyay faaskii. Waxa uu na siiyay faas ama misaar dahab ah. Markii uu dhiibay ayaa Xasaan waxa uu ku yiri tani ma ahan faaskaygii ama misaarteydii ma ahan. Markaas ayuu u sheegay waa taadii. Markii uu sheegay inay tiisi tahay, odaygu waa uu diiday. Sidee ku noqon kartaa? Xasaan ayaa waxa uu isku dayay inuu ugu sheekeeyo wax ku qabsaday ceelka gudihiisa. Si lama filaan ah, Xasaan markii uu galay ceelka waxa uu ahaa mugdi. Markaas ayuu wuxuu maqlay cod dhahaya, war dadka meesha ku jira salaan, haddii kale waxbaa kugu dhici doona. Markii uu salaamay ayaa meeshii oo dhan iftiin noqotay. Waxaan la yiri adigana sidoo kale nabadgelyo dushaada ha ahaato. Markaas ayuu weydiiyay faas mees ugu soo dhacday. Markaas ayaa waxaa loo sheegay in faaska soo dhacday ay isku bedeshay maxaa la dhahay dahab. Faaskii ayaa waxay isku bedeshay dahab. Waxaana loo sheegay in boqolkii sano mar wixii meeshan ku soo dhacay ay isku bedelaan dahab. Markii loo sheegay in boqolkii sano meeshan wixii ku soo dhacay isku bedelaan dahab, ayaa misaartii oo dahab loo dhiibay. Sidii ayuuna banaanka ku soo baxay. Faaskan waxaa lagu sheegay in adeerkiisa uu sheego in faaskan waxyaabo badan uu ka faa'iidi doono oo dhulkii lagu sameeyo ama lagu falane ay beerta si dhaqso ah wax ugu soo bixi doonaan. Faaskii ayaa loo dhiibay. Adeerkii markuu faaskii dhulka ku garaacay oo dhulkii ku sameeyay ayaa si dhaqso leh waxa ugu soo baxay waxyaabihii ugu wanaagsanaa uu jeclaa uu doonayay asiga ayaa u soo baxay. Wiilkii Xasaan ahaa, wiilkii Saliim ahaa markii uu yimid guriga, waxa uu yimid aabiis ayuu walwalsan. Wuxuu aabiis u sheegay in ninkii deynta ku lahaa inuu u yimid, uuna sheegay in uu ka qaadan doono hantidiisa iyo gurigiisa oo idil haddii uu deyntiisa siin waayo. Wiilkii ayaa wuxuu yiri aabbo ha walwalin, aniga ayaan xal keenay. Waa uu soo baxay asiga oo walwalsan oo socda ayaa waxaa arkay Xasaan. waa uu u yeeray kaalay wiilkaygii Saliimow. waa uu yimid wuxuuna ku yiri maxaa ku helay wiilkaygiiyo? Wuxuu u sheegay arrintii aabiis iyo deynta lagu leeyahay aabiis ayuu u sheegay. Markii uu u sheegay deynta lagu leeyahay aabiis ayaa wuxuu ku yiri qaado faaskan. Sideen ku qaataa adeer ayuu yiri. Faaskan waa faaskaagii, adigana wax ku beerto oo wax ku fashta. Markaas wuxuu ku yiri maanta adiga ayaa iga baahi badan ee qaado oo orado beertiina ku falo. Xasaan waa uu soo qaatay markii uu ku fashatay beertiisa si dhaqso leh waxa uu soo baxay dalagii. Markaas markii uu soo baxday ayaa meeshii ku badbaadeen. hal jazaa'u al-ihsaani illa al-ihsaan.